shirkani oo socday muddo 3 maalmood ah kaasi oo ka socday The Royal Palace Hotel oo ah hotel casri ah oo ku yaala duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa ayaa lagaga arrinsanayay qorshaha horumarineed ee wadooyinka Jamhuuriyadda Somaliland ee sanadka 2020. shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somaliland, maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka, maareeyaha ku-xigeenka wakaaladda wadooyinka, agaasima waaxeedyada wakaaladda horumarinta wadooyinka iyo injineerada wadooyinka ee gobolada kala duwan ee dalka. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Jaamac oo ka mid ah injineerada wakaaladda horumarinta wadooyinka ee Somaliland iyo maareeyaha guud ee hay'adda wakaaladda wadooyinka ee Somaliland. shirbu ha runtii qof kasta uu xor u yahay inuu soo bandhigo wixii uu ama wixii uu isagu dareensan yahay iyo wixii uu arkay intaba. run ahaantii waxaan shakhsiyan waxaan dareemay inuu yahay shir aad moodo inuu ka horumarsan yahay shirarka badan lagu yaqaan adduunyada saddexaad oo ah wax la flat organization ama organization amaba hab dhismeed siman oo la wada hadli karo ilaa wasiirka ilaa maareeyaasha ilaa iyo qofka ugu hooseeya xagga shaqada. marka shirkaas faa'iidadiisa waxa ka mid ahayd in la soo bandhigo in la eego waxyaabihii tagay lana soo bandhigo waxyaabaha lagu talagalay in la qabto 2020 iyadoo laga duulay aragnimadii 2019 si loo qeexo loona dabagalo maamul daadejina loogu sameeyo qorshihii sanadka mas'uuliyadeeda la qaybsado cid walba shaqada halkay ka leedahay ay ka qabsato inta baa ujeedada shirku ahayd sidaan la socono hawsha aan haynaa iyo shaqada aan qaranka u haynaa waa hawl ballaaran halbowlayaashii iyo wadooyinkii dalka oo dhan baan maamulaynaa gacanta ku haynaa waxaan la doonayaa inaynan habeen iyo maalin soo jeedahan inaan seexan maadaama infrastructure dhammaan dalka aan gacanta ku hayno sidaa daraaddeed waxaa shirkaasi guulo badan ku gaaray runtii oo aan ku farxi karaa in ay ka soo qayb galeen waaxa u tababaran ama aqoon buuxda u leh qaabka ay u fulinayaan shaqooyinka kala duwan ay hayaan ama ay u cayiman yihiin haddii hay'ad wax inta ka dambeeyo waxa noqonaysa marka shaqadeena inay toos loo bilaabo dabagalkeedii iyo mataqaanaa monitoringkeedii kaliya ka haray laakiin qaab dhismeedkeedii oo dhami qorshihii sanadka 2020 uu sidaa ku qeexan yahay. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somaliland Cabdilaahi Abokor oo soo gabagabeeyay shirkaasi oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa halkaasi ka hadlay isagoo mid u dul istaagay qodobadii ka soo baxay shirkaasi. waxyaabaha halkan isla qaadanay markaan inagu shakil aan isqancinay waxaan ka xusi doonaa waxaan rajaynaynaa qorshaha sanadkan 2020 amba howlqabadka wuxuu ka balaarnaan doonaa mashruucaad balaaran mashaariic balaaran baynu sanadkan ilaahay ka rajaynaynaa inuu inoo hirgalo. waxa ka mid ah waxaan isla qaadanay 360 kilomitir inaynu dhisno sanadka 2020 mashruuca wadada Ceergaabo insha Allah saynu isla qaadanay ummaduna way inala xisaabtamaysaa inaguna waan isla xisaabtami doonaa. waxaan rajo qabnaa sanadka inaynu wax weyn ka qabanno mashruuci balaarnaa ee Berbera corridor oo inoo socda imika labadiisa waji ee ah inta u dhaxaysa Hargeysa iyo Berbera. waxaan ku leenahay talo iyo kormeer waxa kale aan rajaynaynaa sanadka 2020 sida ku qornaa qorshaheena Hargeysa bypass oo ah 22 kilomitir oo laga dhisi doono Hargeysa kaasoo wax badan ka tari doona traffic jamkii magaalada haystay oo gaadiidka Hargeysa dhaafaya waxay mari doonaan insha Allah Hargeysa bypass. waxa kale oo ay ku taxan yihiin qorshaheena qaranka ee labaad NDP2 oo 50% in la dhimo traffic jamka magaalooyinka ahaa ayuu qorshahaas wax ka tari doonaa. sanadkan waxaynu inoo ah in hal ku dhig waan sanadkeenu qiimeynta iyo dabalka inoogu adkaa aanu sameeynay haday noqoto
resource-kan haysano sida loo maamulayo waxaan rajeynayaa insha Allah ilaahay inuu dhammaan inoo suurtageliyo dardaarankeyguna wuxuu yahay xil iyo mas'uuliyad baynu halkan ka qaadnay qorsheenu dhiganay inaynu sida ay tahay uga soo baxno qofka ka gaabiyana waynu isla xisaabtamaynaa waa Idris Bershiya telefishinka Universal Hargeysa.